reer Puntland waxaan rabaa marka caawada inaan challenge gareeyo maxaa idinka muuqda oo midnimadii adig midnimadii maxaa caawa oo idinka muuqda calanka waa calankii Puntland gabdhaha asigay ku xiran yihiin waa ku faraxsanahay waa wax lagu faano laakiin aaway astaantii midnimadii idinka muuqata reer Puntland waxaan rabnay gabdhaha waxaan rabnay nusna calanka Puntland inay xirtaan nusna calankii Soomaaliya inay xirtaan marka waa maasantahay بس انت حرر كربسار كورني واصيغنا waa ku baadsantahay waa xawaay waa labsadeeda wax weyn waay waa gabadhaasi wax weyn meel weyn ay reerka ka furantay maxaa ay caaw laakiin waxaan rabnaa afartii sawir meeshan la soo dhigay bas ma aha midnimada Soomaaliya sideeda waa kuwa sawirada meesha ku yaala waa madaxdii muxuu ahay waa muxtarimiin waana ku maasantiin inaad madaxdiina ixtiraameysaan waxay ka mid tahay astaanta muxuu ahay dawladnimada ka mid tahay ku maasantiin laakiin Puntland way dhalatay way 17 jirsatay waa jirtaa horumar runtii lagu faani karo oo Puntland ay ku faani karto Soomaaliyan ay ku faani karto ayaa Puntland ka jira maanta waa soo wareegnay mashaariicda iyo horumarka jiro dhamaan soo aragnay magaalada waa ku faanaynaa waan ku faraxsanahay dadka reer Puntland way ku faanayaan dadka Soomaaliyeedna way ku faanayaan waxa ka jira muxuu ahay wanaaga meel Soomaaliya ka mid ah runtii aad iyo aad ayaa wax oo ay u yihiin faa laakiin anolaato xoogga wadaniyiinta Soomaaliyeed waa maasanyiin marka waxaan rabnaa muxuu ahay aad iyo aad arinta midnimada ayadoo ficil ah oo tanasulkeeda leh oo juhdigeeda leh oo xoog iyo xoolo lagu bixinayo leh ayaa dadka Soomaaliyeed maanta u wada baahan yihiin meel kasta ay joogaan dawladda federaalka aane waa symbolkaas ama calaamadaas midnimada ay u taagan tahay calaamadaas midnimada ay u taagan tahay inay dalkii dib loo wada mideeyo dadka wax ka dhaxeeyo ay yeeshaan sidaas ayaa maxaan ku iraahday midnimadu ay ku imaan kartaa haddaanay waxba naga ma dhaxayn mid ma noqon karno waa inay wax naga dhaxeeyaan siyaasaddu waa inay naga dhaxayso dhaqaaluhu wax naga dhaxeeyo waa inuu leeyahay siyaasaddu wax naga dhaxeeyo waa inay leedahay amnigu wax naga dhaxeeyo waa inuu leeyahay de wixii kale oo inaan kala lahaano oo duruufahayna gaarka ah oo deegaanadeena iyo waxaynu ku saabsanay waan kala yeelanaynaa waanan maamulanaynaa waanan isku ogaanaynaa laakiin dalka Soomaaliya dawlad Soomaaliyeed qaran Soomaaliyeed wuxuu ku jiri karaa oo kaliya wax la wada leeyahay inaan yeelano waxa noo gaarka ah oo aan duruufaheena hooso maxalliga ku xalinayna waa kala yeelanayna qawaaniintaana noo tilmaami doonto dastuurka cusub aan noo tilmaami doono maxaan ku raadin shuruucda cusub ee hadda federalismka loo sameeyo dhan yaa noo tilmaami doonto laakiin waxa aan kala leenahay yaanan ku xaq jirin oo aan ku fogaanin waxa aan kala leenahay haddaan ku fogaano oo aan ku xaq jirno waxaan daciifinaynaa wixii aan wada lahayn qarannimadeennuna way daciifeen